Assalamu alaikum, it's Anna. Today I want to share with you 10 easy English words about the furniture. Come with me. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10 eray oo fudud kaasoo u isticmaali karno si daily waxaan ku baran doonaa 10 kan eray alaabada u isticmaalno guriga biidnillaahil kariim wax badan waa ku faa'iidi doonaa waxaan rajaynayaa videogan dhamaadkiisa video walbana wuxuu wataa sawir aad si fiican u fahmi doontiin waxaan ku dabaqaysiin maalin walba iloobin 10 eray inaad baratid luqadda Englishka si uu u hormaro vocabulary-gaaga ku hadalka Englishkaaga xirfadahaaga Englishkan ee u bataan soo dhawaada mar kale maanta waxaan wada 10 eray oo fudud kaasoo ku saabsan barashada luqadda Englishka waxaad idinku sheegi doonaa af Soomaali waxa ugu horeeya aawadana waxa waa maanta erayada arabna barna ama vocabulary-geena kursi waxa baran doonaa laba kursi oo kala nooc ah sidoo kale waxa baran doonaa sariir waxa kale oo baran doonaa armaajo baran doonaa comedian waxa kale oo baran doonaa miiska lagu cuno dining table miiska cuntada lagu cuno waxa kale oo baran doonaa coffee table miiska kafeega lagu cabo ama maxaa la miiska wada fadhiga sidoo kale waxa baran doonaa code kaasoo macnihiisu oo ilmaha yar yarka inta idin soo saar doona soo English dhinacan videogana ku daawan doontiin sidoo kale waxa baran doonaa gambar sida lagu dhaho English stool sidoo kale waxa baran doonaa qaanadaha asaarano buugaagta ama sharxaadaha sheeyaha yar yarka shelves maanta waxa ku baran doonaa luqadda Englishka 10 kaas eray waxaan rajaynayaa inaad wax badan ku faa'iidi doontiin man videogan noo dheer noqdo ama oo bato waxa raba video tayo leh minutkiisuna oo yareeyo qof kasta wax uu ku fahmaayo ana maalintii ugu horreysay sidoo kale soo gelin doono vocabulary-deena si aan u horumarin luqadeena waa inaan badinaa vocabulary-geena insha Allah weegina waxa idin soo gelin doonaa ugu yaraan 3 jeer Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaantiin ka faa'iideysan soo dhawaada maanta videogan waxa ku baran doonaa 10 easy English words about furniture 10 eray oo fudud oo ku saabsan alaabyada aan u isticmaalno guriga biidnillaahil kariim waxa rajaynayaa 10 kan eray maanta ka dambe inay ku dhibi doonin maskaxdaadana ee maxaa lahaa ee qaban doonto waxa kale tips ku raacin doonaa ha iloobin inaad samaysatid qoraal kaliya ha dhageysanin qoro 10 kan eray maalin walbana ku dabaq erayadaada nolol maalmeedkaaga vocabulary-skeen wuxuu noqon doonaa taxane waxaana baran doonaa 10 eray wax walba oo ku saabsan luqadda Englishka iyo sidoo kale sheeyada oo nolol maalmeedkeena kamid inaan ku barano waxaan hadda ka bilaabi doonaa 10 kan eray haddana waxa ka bilaabi doonaa 10 eray oo ku saabsan alaabada guriga waxaana ka soo sameeyay erayo fudud simple sentences erayo fudud ama la jumlado fudud kaasoo qof walba oo ku baran karo ama u fududeyn karo barashada luqadda Englishka perfect for young learners kelima ahan dadka yar yar ee waa qof walba oo bilow ilaahay hanoo wad fududeeyo haddana waxa toos u gudgaleynaa cashirkeena maanta waxa haysanaa 10 kan eray furniture words bankaas eray waxa rabaa inaad ku soo celceshatiin aadan iloobin sofa and armchair meeshan waxa ku haysanaa sofa and armchair waxa ku haysanaa laba shay ama laba oo maxaa lahaa kursi labada kursina waa kana kursiyada fadhiga midka hadda ilmaha ay ku wada fadhiyaan waxa lahaa sofa kursiga dheerka ee lagu seexan karo maxaa la saddex qof ka badan lagu fadhiisan karo marka qofkana siino u baahan yahay kale inuu ku seexdo oo rabo waxaas oo dhan loo isticmaalo kursigan jumlad yarta asin waxa waaye this is a sofa kani waa sofa we sit on it to relax waxa ugu fadhiisanaa inaan ku nasano ama inaan ku daawano TV-ga basta fadhiisanaa maxaa lahaa sofa mid walbana sentenceskiisa ku dhis si aadan u iloobin armchair kan waxa kursigan waaye oo fadhiga midka oo wato kan kaliya ee halka qof uu ku fadhiisto ee gacmaha oo saaran karo kaasa maxaa lahaa armchair inta maxaa ku haysanaa jumlad mid walba eray walba jumladiisa oo dhisana hoos soo sameeyo oo fudud oo qof kasta uu fahmi karo an armchair is comfortable an armchair is a comfortable kursigan inuu yahay raaxo qofka marka hore inuu ku isticmaalo labadiis gacan inuu saaro and then maxaa lahaa oo nasiino ku dareemo qaabka uu yaalo iyo meesha la soo dhigo ujeedin marka ku fadhiiso sofa kale way adag tahay labada gacan inaad saartid laakiin kan waxa uu wadaa inaad labada gacan saartid jumladan sida ku dhisan an armchair is comfortable chair with arms qofka intuu labadiis gacan saarto awoodaa armchairka inaad si fiican iskula fahanyaarjeena sidoo kale waxa haysanaa bed and couch bedka waxa waaye
sariirta weyn ee dadka ay ku jirtaan sariirtan hadda aan u jeedno mararka qaar waxay noqotaa single bed and double bed waxa waa markii labada sariir ee tahay ee laba qof ay ku seexanayaan marka single bed ee tahay sariiraha halka xabaa waxa la single bed hadda inta waxa ku haysanaa sariirtan weynta waxaana jumlada aan soo raacsiiyay waxa waaye we sleep on a bed at night inaan ku seexana habeenkii sariirta habeenkii waxa we sleep on the bed at night inaan habeenkii ku seexana sariirta sidoo kale inta waxa ku haysanaa code-kan waxa waaye a baby sleep in a code waa sariirta ilmaha yaryarka iyo sariirta ilmaha weeweynka marka dhigaysid bed cunug yarka sariirtiisa ma ahan bed waa inaan dhahdaa code waa isla fahanaa rajeyna sentence-kan waxa waaye a baby sleep in a code waxa kaloo haysanaa wardrobe and just of drawers meesha waxa ku haysanaa komediin iyo armaajo waxa soo horay armaajada waaye wardrobe sawirkan saa ka arkeyno armaajada weynta ee ku kaydsan dharka waaye sentence ka soo dhisan waxa waaye a wardrobe is used to store clothes armaajada action dharkeena ama ku kaydsan ee actiono qolka jiifka sawirka dhinaca jiro ee midig waaye wardrobe armaajo sida qoraalkan ay ka arkaysiina si fiican u fahanaa rajeyna just of drawers kan af Soomaali waxa waaye komediinka aagshano maxaa la waxyaabaha yaryarka alaabada yarka ku kaadsano ee aagshano inta badan dharka iyo muraayadaha iyo waxweynka aanan wadanin has many of drawers to keep small items inta badan waxa ku ilaalsan ama aagshana waxyaabaha yaryarka ee isticmaalno ina si fiican isku fahmina rajeyna dining and coffee tables meesha maxaa ku haysanaa labada miis waxay kala yihiin dining table iyo coffee table dining table maxaa waaye midka ku cunteeyo ama dining table maxaa waaye miiska lagu cunteeyo ama lagu qadeeyo lagu quraacdo lagu casheeyo miiska cunnada ama miiska cuntada maxaa lahaa dining table maxaa hadana jumlada yarta soo qaadanaysana waxaa waaye we eat our meals at the dining table we eat our meals at the dining table cuntada waxaa ku cuneynaa miiska loogu talagalay cuntada miiska cunnada sidoo kale waxaa isna coffee table kan waxa waa miiska yarka ee fadhiga aan dhigano ama soofo kale fadhiyada kursiyada kale raacsiisan kaasoo aan ku cabno kafeeyada shaaha qolka martidan inta badan ku jira shaaha iyo kafeega waxaas yarka loogu talagalay lagu cunteenin small table in front of the sofa miiska yar ee horyaalo kuraasta ama kursiyada loogu talagalay fadhiga ama fadhiga miiska yar horyaal fadhiga waaye sidoo kale waxaa isna stool waxaa leenahay gambar waaye marka Soomaali ahaan loo fiiriyo ereyga gambar waaye stool gambar sit without a bag or arms waa shayga ku fadhiisano asoo gadaal iyo shay iyo wax goyn meel lagu sinjiro sida fadhiga oo to kala ama gacmo la saarna aan lahayn gambar oo marka aan ka nooyahay shelves maxaa waaye we keep books and things on the shelves waa armaajada aagshano buugaagta iyo shayada yaryarka waxaa lahaa shelves intana sawir yaryar waaye sawiradaana kulli hadda inta waxa soo barnay kale oo noo muujina sofa and coffee table dining table and stool intana maxaa ku haysanaa sawiro yaryar mid walba waxa noo soo sameeyay furniture fund reviewing hadoo kali inta u fiirsid asoo jumlada yaryar ku wato sida haday ka siiyay haddana 10 kere hal mar af Soomaali isku xigxiga ka sameeynayna si noogu fudaato sofa waxa waaye kursiga loogu talagalay 3 qof iyo wax ka badan lagu fadhiisto armchair sidoo kale kursiga halka qof ee fadhiga ee labada gacan la saaran karo bed sariirta weyn ee dadka weyn ee ku jirtaan ama single bed ha ahaato ama double bed ha ahaato wardrobe armaajada weynta ee aagshano dharka just of drawers komediinka ama komediinada wato qaanadaha yaryarka ee aagshana alaabadeena yaryarka dining table miiska cuntada code sariirta ilmaha yaryarka ee ku seexdaan coffee table miiska lagu cabo kafeega ama miiska yarka ee wato fadhiga inta badan qolka fadhiga aagshano stool gambar shelves qaanadaha ama meesha loogu talagalay in la saarto buugaagta sharxadaha yaryarka guriga waxaa lahaa shelves waxaa rajeynaa inaan aad iskula fahanay manro waqtiga noo dheeraado ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin fududeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh